la samayn jiray adduunyada oo dhan laga wada daawan jiray oo isweydiisay ilaa hadda maxaa dhacay ilaa haatan muxuu ugu soo muuqan la'yahay YouTube-yada kale ee barnaamijyada ka socda wax kale ma aha qosol feega ma jecli dowlad cadeen been ah ma jecli oo haddaad aragtaan 4 qof 3 qof 5 qof Malaysia dhexdeeda in dad walaalo ah oo aad iskugu dhow isjecel wax wada qabsanaya ma aha laakiin 5 qof iyo 6 qof oo is wada wata hadda aragtiin waa been hadda idin leeyahay waxa ka jiraan oo halkaas laga wada jiran wax laga wada qabaa mana aqaan sababta wax la iskugu qaaday qof alaal qof walba wuxuu carraa asaga iyo dantiisa markuu ka gaaran uu ka dhaqaaqaya aniga idin leh liibaan in lagu danaysto way soo dhamaatay qofka aniga jeclahay aan isleeyahay qofkan waa qof walaala waa caawin kartaa waxba u qaban kartaa waan u qabanaya inta kalena waxaan leeyahay dacaloosha Allah idin nadiifiyo iscafiya waxaan laga yaabaa caawadaanba in la iska xiro sidoo kale waxaa jira shakhsiyaad aan rabin halkan aan magacyadooda ku sheego bilowga horena igu soo galay walaalnimo iyo isjecel laakiin gadaal dambe aan ka arkay inay yihiin aboor lugaha iga cunaya mise dhabarka iga cunaya alxamdulillah waxa iska ahay qof habi iska dhool cadeen badanoo iska sheekay aan ogeyn xitaa hadii musbaar dhabarka looga taagan yahay dad aniga aan ku faraxsanaan jin inaan arko laakiin noloshu dhabta markay aragtid aad qaracmays waxa maxallada bismillaah maxaasisana maxayta qofkan sida uu dhaqmay marka nolosha social media waa qiyaali ana hadda idin leh runta idin sheegay waxyaabo badan aan idinka qarsoon waxaad arkaysaan qof dhan oo muslim idin ahaa laakiin ahmaq ah markii runtiisa la ogaa